madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo toddobaadyadii la soo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug maamulka gobolka labada duq ee degmada Gaalkacyo ee bulsho kale madaxweyne Xaaf ayaa intii uu safarkiisa shaqo ku joogay magaalada Nairobi waxa uu kulamo kula soo qaatay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya kulamadaas oo diiradda lagu saarayay taageerada iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya isla markaana ay qayb ka tahay xal u helidda khilaafka u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa soo dhaweynta kadib waxa uu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ay ku kulmeen magaalada Nairobi isla markaana ay islaaf garteen in shir guud la isugu yimaado bilowga bisha soo socota magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland kaas oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka oo korjoogto ka ahaan doonta sida uu sheegay madaxweyne Xaaf marka labaad waxaan ka imi Nairobi oo aan ku maqnaa muddo 14 bari ah halkaas oo aan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada halkaas oo maaragtay aanu wax badan kala soo kulanay wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miro dhashay insha Allah tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u soo jeedinaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dalka dhibaatada ka jirta hadday tahay mid goboleed iyo mid caam ah mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa oo ay abaartu ka mid tahay oo colaadu ka mid tahay oo maamul xumadu ka mid tahay ilaahay ka daweeyo waxaan rabnaa in aan u hawlgalno saacadda laga bilaabo iyo waqtiga la joogo sidii aan dalka ummadda Soomaaliyeed u badbaadin lahayn dhammaanteed ma aha Galmudug iyo Puntland ma aha kaliya waa Soomaaliya oo dhan ayaa badbaado u baahan waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shir Garowe maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa in shirkaas uu noqdo mid miro dhala oo la isku fahmo oo dadku isku fahmaan oo Soomaaliya meel looga soo wada jeesto siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda ee wax ka soo suurtagala horumarinteeda in laga badbaadiyo abaarta iyo wax kasta oo dhibaatada ku soo wajahan in laga badbaadiyo haddaan la iskaashan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iskaashan waxba ma hagaagayaan ilaahay ku soo duwo ummadda dariiqa fiican mar rabo inaan war badan sii daayo wixii dambe dib baan ka wada hadli doonaa laakiin maanta hadalkayga waxaan ku soo koobayaa wixii aan soo aragnay iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleed iyo dowladda federaalka wada kulmi doona hadda ilaahay ku soo duwo inay wax fiican ku tashadaan oo dalkooda iyo ummadooda badbaadiya Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.